كل كيان خير أهمانته وجدي سوحي تهاي سودوين يترحيب أين سودوين إنه شيخيني وينا إيه وحويا جدي لسعتي كسعودي مؤسسة التوعية الإسلامية لجنة التعاون لدعوة المدارس أيو كسعودي وكنا قصوا بغضي مقالة دي هرقيسو إن شاء الله تعالى وحي حق يوربحين يدعوة ماشي مري سبق سجى إنه وربحين دونا وورك إن شاء الله تعالى نقدر جد دونا لكن هرت كلن كينا وحي نكفر فرنا وحي خير بدن أو آيات من القرآن الكريم ونأخي دونا شيخ موسى عبد القادر حسن أو ودي لجنة التعاون لدعوة المدارس مقالة برعة وسودو الشيخ موسى إن شاء الله تعالى آيات القرآن من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الشيخ سعد محمود شيخ موسى أو شيخ مؤسسة التوعية أبابلي أما أساسي oo noogu yimid hadaanu nahay lajnatu tacaawun li dacwati almadaaris qaybta burco insha Allah ta'ala inaanu nimaadno gobolkan Togdheer oo aanu maanta ka aasaasno lajnatu tacaawun li dacwati almadaaris ma aha maanta oo kaliya xilliga aanu nimid gobolkan Togdheer dugsiyadooda waanu soo marnay waanu soo wacdinay hore waanu soo marnay dugsiga Kandalight dugsiga kale la yiraahdo Sheekh Bashiir marka imtixaan bay ku jireen noomay suurabin ardayda la kulano dugsiga Smart ba iyaguna aanu ardayda soo wacdinay runtii meelo badan oo soo maray oo xilliyaad kale oo fara badan oo kalena waanu nimid laakiin maanta arrinkan aan u nimid waa in lajnatu tacaawun li dacwati almadaaris ee dhalinyarada in qoriisu dhiibki weeyaan in dacwada la isu dhiibo weeyaan oo raggaas marka ay iskuuladii gaarsiiyaan الحمد لله رب العالمين شيخ عبد الرحمن شيغي اي سida fiican ee dhalinyarada iyo sheekhuba noo soo dhaweeyeen waan runtii uga mahad celinayna in maanta waa koodii January marka waxaan anagu ku soo dhaweynaynaa oo halkay dadku xumaan iyo qudan kale ay ku dhex jiraan ama hambalyo kale anagu de sanadka maanta kooda waxaan wadnaa safar dacwadeed oo gobolada oo waliba ay taariikh u tahay gobolka Togdheerna in January koodeedii 2026 maanta lajnada laga aasaaso waa ilaahay mahadi marka alxamdulillah saasan u soconaynaa ood weyne ayaan isagana daad mareed aan shaqada iyagana insha Allah ka aasaasi doonaa marka gobolada bari oo dhan waxaan doonaynaa fasaxa dheer ee soo socda in aan gobolada bari oo dhan marka lajnaduhu dhaqaaqaan inaan u qabanno mu'tamarka dhalinyarada gobolada bari inaan u qabanno oo waliba ay Togdheer iyo Burco ay noqoto meesha marti gelinaysa goboladaas oo dhan dhalinyarada soo keeni doono oo mu'tamarka u qaban doono ilaahay idinkii marka waxa weeyaan hawsha dacwadda dhalinyarada dugsiyada in dacwadda laga wado weeyaan hadafka ay mu'assasadu ahayd iyo lajnadana loo aasaasay in dhalinyaradu ay khayrka isgaarsiiyaan iskuulada dacwadda laga faafiyo dhalinyaradu ay noqdaan jiilka madaxdii bari bay noqonayaan in iyagu iskuuladii dacwadda ka wadaan marka hadafka aanu u nimid aanu u soconnaa wax kale maaha waa intaas weeyaan in dhalinyarada la baraarujiyo mustaqbalkooda iyo adduun iyo aakhiradooda la dhiso ayaan insha Allah mar walba heegan u nahay waana sii xoojinaynaa hal qodob waa ku darsanaya dhalinyarada maanta marka in badan oo kamid la eego hadii hoos loo sii galo waa yani waxyaalo badan ma ka soo burqanaya inaan ku ogeyn marka midaan doonaya inaan idin sheego waxa weeyaan inaynu bal dadka ayna la tacaalayo garbahayna haye odhanayo daadaha dabada baro inaynu sidoo uduq ugu quuxda badan leh aynu u fahanno ka shaqeyno dadka kale sii gaarsiino balligu candi walaw ayatu nabi sallallahu alayhi wasallam dhameeyay dacwadaas ma oranayaan ka wada shaqeyno safarka aanu soo baxnay in ilaahay dadku soo baxnay ee aanu gobolada oo dhan aanu ka soo dhalinyaradii la soo kulanay haday noqoto saaxil iyo degmada sheekh iyo magaalada Burco ee gobolka Togdheer waa gobolkii ragga la yidhi ما شاء الله إلهي رجع ka dhigo إلهي خيرك iyo maartay wanaag hay noo furo